alla naxariistii janna fardowsaha ka waraabiya waxaa goodhaweyd ku geeriyooday isbitaalka international ee magaalada hargeysa jenaraal cabdilaahi fadal iimaan taliyihii guud ee ciidanka booliiska somalilan sida uu warfidyaenka goodhaweyd ugu xaqiijiyey halkan waa xarunta guud ee isbitaalka magaalada hargeysa maxamed kaahin axmed wasiirka arrimaha gudaha somalilan oo ay hareere taagan yihiin xubno ka mida golaha wasiirada saraakiisha kala duwan ee ciidamada milatariga booliiska iyo asluubta waxaana ka mid ah hadaladii wasiirka sidan ilaahi wa innaa ilayhi raajicuun inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaa caawa fiidkii goordhaweyta ku geeriyooday cusbitaalka hargeysa international sarreeyagaas cabdilaahi fadal iimaan taliyihii guud ee ciidamada biliiska qaranka somalilan ilaahay naxariistii jannada ha waraabiyo ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo waxaan ka tacsiyadaynayaa dhammaan qaranka somalilan oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan golaha wasiirada golayaasha qaranka ee sharci dejinta dhammaan ciidamada kala duwan ee noocyada ciidamada kala duwan ee qaranka somalilan gaar ahaan waxaan u tacsiyadaynayaa ciidanka booliiska oo taliyaha ka ahaa muddada dheerna maxaan ku dhahdaa oo taliyaha ka ahaa saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda dableyda iyaga iyo xaasaskooda iyo caruurtoodaba waan ka tacsiyadaynayaa waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo cabdilaahi fadal wuxuu ahaa waynu ku xasuusanaynaa qarankan raggii wax ka soo dhisay ciidamada booliiska buddiga ugu ahaayee ka soo dhisay xilal fara badan oo kala duwan ilaa xil hoose ilaa iyo uu maanta ahaa taliyaha ciidamada qaranka ee guud ee somalilan ee booliiska ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo waxaa berrinta lagu aasayaa xabaalaha masallaha ayaan ku wargelinayaa dhammaan shicibka magaalada hargeysa iyo shicib weynaha reer somalilan waxaa lagaga tukanayaa duhurka masaajidka sheekh mustafe ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo faysal maxamed aadan fifa tv-ga somali cable hargeysa.